taliyaha cusub ee qaybta booliska gobolka Shabeellaha Dhexe Aadan Xuseen Yarow oo dhawaan loo soo magacaabay inuu noqdo taliyaha qaybta booliska gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu ka hadlay falalidii kuwa amniga oo maalmihii ay soo dhaafnay ka jiray deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Taliyaha qaybta booliska gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay dilal qorsheysan oo maalmihii ay soo dhaafnay ka dhacay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxa uu sidoo kale uu sheegay in ay hayaan shakhsiyaadkii ka dambeeyay dilalkaasi ka dhacay xaafadaha magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. waa ogtahay sidaad hore ula socotaba maalin dhaweed dilaa ka dhacay dhankan bari horseed waa baxnay markii loo sheegayba ninkii rabo waa fiirsan karaa maalinka waxaa layga duubayay muxuu ahay filim baa layga duubayay anigoo sacboolay oo taagan oo dadkii dhex socda ayaan soo qabtay ninkii waa keenay waa ku guuleysay ilaahay baa nagu guuleeyay waa xiran yahay wuxuu sugaa waa maxkamad xali saas oo kale waxaa ka dhacay garsaale nin baa lagu dilay isla markii amar baan bixinay waa ku soo guuleysanay waa xiran yahay jawhar waxaa ka dhacay xali waa ognahay nin baa la dhaawacay aniga khaasatan guriga aan leeyahay agtiisa lagu dhaawacay iskool ku yaallo birwaato meesha lagu dhaawacay isla markiina loo soo sheegay waa raadinay waana daba joognaa mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan leeyahay dadka degan Jowhar ha iska dayeen dadka ku soo dhex dhuumanayo tuugada dadka qalalaasada ku wado hadii alla ku dadka nabadgelyada xumada abuuraayo ha soo sheegeen annagana waxaan u ballan qaadaynaa inaan gacan u fidinno soo qabanno annaga oon waxba u dhiman dadka waa dadkayni waa u adeegaynaa waa marxabaysiinaynaa waxba u dhimi mayno waxay ka tabanayaan booliiskan waa u dhamaystirin oo soo qabanayna. dhanka kale taliyaha qaybta booliska gobolka Shabeellaha Dhexe Aadan Xuseen Yarow ayaa waxa uu ka hadlay halka uu ku dambeeyay kiiskii taliyihii qaybta booliska ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee lagu dilay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle isagoona sheegay in wali baaristiisa ay hayaan isagoona sidoo kale tilmaamay in shakhsiyaad ay hadda gacanta ay ku hayaan kuwa ay ku tuumayaan in ay ka dambeeyaan dilkii lagu geystay taliyihii hore ee qaybta booliska gobolka Shabeellaha Dhexe Khaliif Cabdulla Carfaaye. Allah u naxariisto ninkaas kiiskiisa Jowhar uu ka dhacay Allah u naxariisto kuwa ka dambeeya ka dhacay intaba annaga hadda waxaan ku soo gaarinay waa baaris baan ku jirnaa dad baa qaar baa noo xirxiran qaar baa xamar ku xiran generaalna waa loo bixiyay oo sidaan hadda ka warqabo xamar gudiga loo bixiyay oo ma aragtay xogtaas aad u raadiyo raadkeedina haddaan fiirino in la heli doonaan aaminsanaa. Assalaamu calaykum. labadii isbuuc ayna soo dhaafnay ayaa magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa ka dhacay dilal gooni ah iyadoona dilkii ugu dambeeyay xalay uu ka dhacay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle.